dooda ku saabsan farqiga u dhexeeya canshuuraha casriga ah iyo sakada, iyo in haddii mid la bixiyo ay kaa gudayso midda kale, iyo in labadoodaba la bixiyo, iyo in laysku dhammaystiro, waa dood aada u ballaaran. haddaba waxaan doonayaa inaan halkan kusoo gudbiyo 30 farqi oo u dhexeeya canshuuraha casriga ah iyo sakada. mana aha fadwo ama xukun, ee waa waxyaabo soo baxay kadib markii aan miisaan saaray labadoodaba. mana lihi farqiyadu waa uun 30kan ee kuwo kalena way jiri karaan, laakiin ugu horeyn inta aanan gelin waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin aan eegno maxay isaga mid yihiin sakada iyo canshuurta. ugu horeyn, sakada iyo canshuurtaba waa qasab in la dhiibaa. labaduba mar haddii ay kaa baxaan dib kuguma soo laabanayaan inta badan. labaduba waa mas-uuliyad ijtimaaci ah. labaduba noocyo badan ayay leeyihiin. labadaba dan guud iyo mid gaaraba waa lagu bixiyaa. bal haddana aan eegno farqiga u dhexeeya. sakada la bixiyo waa amarka allah, laakiin in canshuurta la bixiyo waa amarka dowladda. sakada qofkii dhiibay waxa uu dareemaa inuu khayr hormarsaday. qofka canshuurta dhiibaa waxa uu dareemayaa in la dhacay. qofka sakada dhiibaa waxa uu dareemayaa inuu waajib gutay, dibna ugama daba hadlayo. laakiin qofka canshuurta dhiibaa waxa uu dareemayaa inuu dowladda deen ku leeyahay. sakadu waa waajib diini ah, halka canshuurta ay tahay waajib qaran. sakadu waxa ay waajib ku tahay muslimiinta, laakiin canshuurta gaal iyo muslimba waa laga qaadaa. sakada nisbadeedu way cayiman tahay mar walba, laakiin canshuurtu way isbabedeshaa. sakada waxa uu la sii karaa oo keli ah dhowr nooc oo dad ah oo qur-aanka lagu cayimay, laakiin canshuurta cidda qaadanaysa ma cayimna. sakada qofku ciddii uu rabo ayuu sii karaa si iskiis ah, laakiin canshuurta qof kasta lama sii karo, waa in dowladda la siiyo. sakadu waxa ay leedahay nisaab ay ku waajibto, laakiin canshuurtu ma laha meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhammaato midna. sakada inteeda badan waa in sanad ka soo wareegaa, laakiin canshuurta sanad wayna ka yaraa kartaa wayna ka badan kartaa. sakada wax wanaagsan unbaa lagu qaban karaa, laakiin canshuurta xumaan waa lagu qaban karaa. sakada cid kordhi karta iyo cid yaray karta midna ma jirto, laakiin canshuurta dowladda way yaray kartaa wayna badi kartaa. sakada waa inuu qofku awoodo, laakiin canshuurta awood looma fiirinayo. sakadu waa xaqa dadka baahan, laakiin canshuurta qof aan baahnayn ayaa qaadan kara. sakada in la musuq maasuqo waa laga baaqsan karaa, laakiin canshuurtu inta badan musuq maasuq kama dhammaato. sakadu waa cibaado, laakiin canshuurtu waa dano bini aadam. sakadu waa muhiim, waxa ayna ku xigtaa salaada, laakiin canshuurta muhiimadeedu way isbabedeshaa. sakada wax xaaraan ah lagama bixiyo ama maal xaaraan ah lagama bixiyo, laakiin canshuurta wax walba waa laga bixiyaa. sakadu qaab toos ah ayay ku timaadaa, laakiin canshuurtu qaab toos ah iyo qaab aan toos ahayn ayay ku timaadaa. mararka qaar canshuurta ayada oo lagaa qaaday ayaada haddana ka warhayn in lagaa qaaday. sakada waxaad sii kartaa qof kasta oo ay ku baxdo meel walba uu joogo, laakiin canshuurta inta badan waddanka aad ku nooshahay ayaa qaadanaya. sakada waxaa lagu bixi karaa waxyaalo aan lacag ahayn, laakiin canshuurta inta badan lacag ayaa lagu bixiyaa. sakada qasab ma aha in lagu weydiiyo si aad u bixiso, laakiin canshuurta waa in lagu weydiiyo laguna cayimo inta aad bixinaysid. sakada waxaa loogu talagalay in ay u faa'iideyso dadka danyarta ah, laakiin canshuurtu marar badan waxa ay u faa'iideysaa dadkii bixiyey. sakada mar walba waa daahirin xagga nafta ah, laakiin canshuurtu mararka qaar ayay dembi kugu noqon kartaa haddii siyaabo qaldan loo isticmaalo. sakada waxaa laga bixiyaa hanti, laakiin canshuurta waxaa laga bixiyaa dakhli inta badan. sakadu waxa ay ka tirsan tahay tiirarka islaamka, laakiin canshuurta waxa ay ka tirsan tahay tiirarka ra'sumaaliyadda. sakada ninkii aan bixin asaga oo awooda waxa uu la kulmayaa ciqaab adduun iyo mid aakhiro, laakiin canshuurta ninkii aan bixin asagoo awooda waxa uu la kulmi karaa ciqaab adduun bishardi haddii la ogaado. sakadu waxa ay abuurtaa isjacayl muslimiinta dhexdooda ah, laakiin canshuurta waxa ay abuurtaa isqabqabsi badan. sakada hal shay dhowr mar lagama bixiyo, laakiin canshuurta hal shay dhowr mar waa laga bixiyaa inta badan. midda ugu dambeysa ayaa ah sida culmo badan qabaan, hal mar oo aad saka bixisay 1000 canshuurad way kaa guddaa, laakiin canshuur ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in dowlad walba ay awoodeedu la eg tahay inta shacabkeedu canshuur dhiibaan.